بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلن كيني لبعض إنه كجهد ليني بشهر رمضان هي وديار جروجا إنه ديار جروبينه قلب كإنه تلمام بينه ومهم كأه قف كمسلم كمركب بشهر رمضان وديار جروبيه وقلب كأورنا يا براءة الذمة من الصيام الواجب بشهر رمضان أنت يسنكون سوق جلين وحالجار ربع وحي صونه هري واجب وها إن عاد إسكبريه شيء وعاد إسكب جديد بالجار ربع تام معناه هذا وحويه وحال الربع قفك أنت يسن بشهر رمضان السوق جلين إنه إسكب لما يستراحة دي لقولها صون قضاءه هري قف مسافرها بشهر رمضان قيبا كتكتي gabadhii caaday lahayd oo qayb baa ka tagtay ilmay nuujinayso waxba ka tagay uur bay lahayd oo waxba ka tagay uu xanuunsanayay qofkii rag iyo dumar ku ahaadaba soon baa ka tagay dadka noocaas oo kale soon hore lagu lahaayo ramadaantii hore ah waxa laga doonayaa isla markaana hadda awooda inay soomaan oo soonkii soo qadeeyaan waxa laga doonayaa inta ramadaantani soo imaanin oo soo galin inay iska dhameystiraan oo ay qadeeyaan ayaa la doonayaa عائشة رضي الله تعالى عنها حديث صحيح البخاري كسوغان waxay sheegtay Ramadaan baa la igu yeelan jiray soonkeeda dabeetana maan awoodi jirin inaan qadeeyo ama maan qadeyn jirin ilaa Shacbaan timaado kadibna Shacbaan baan qadeyn jiray Shacbaan ayaan qadeyn jiray Xaafid ibn Hajar iyo ay makalaba waxay leeyihiin waxa laga qaadanayaa dadaalka ay ku dadaali jirtay Aisha inay Shacbaan iska dhamayso qadihii hore lagu lahaa in ay dambi tahay in ramadaanta kala soo gasho iyadoo qadihii aad wali la imaanin waana saasoo waa dambi weyn weey qofku in ramadaan qadihii lagu lahaa cudur daar la'aan ramadaanta kala uu gaarsiiyo marka waxa la rabaa walaalayaal qofka muslimka ah bisha ramadaan ay soo socoto u diyaar garoobayo diyaar garowga u diyaar garoodi waxa kow ka ah oo kuwa ugu waaweyn ah in aad ku tala gashay wixii qadada lagu lahaa in iska dhameystirtid ayaa laga doonayaa billahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh